Ardayda Somaliyeed ee ka soo jeeda gobolada Puntland ee wax ka barta dalka Malaysia ayaa Sameystay Dalad ama Urur ay ku Mideysanyihiin sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Axmed Abukar Ashari oo nooga soo warama caasimadda Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Ardayda Somaliyeed iyagu wax ka barata wadanka Malaysia isla markaasina ka soo jeeda Puntland ayaa waxa habeenkii xalay ahaa ay kulan balaaran ay ku yeesheen jaamacadda Islaamka ee wadanka Malaysia iyagoona sameystay dalad ay ku mideysan yihiin dhammaan ardayda reer puntland ee ku dhaqan wadanka Malaysia. Daladan ay ku mideysan yihiin ardayda Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ujeedadoodu waxa ay tahay isku xirka guud ahaan ardayda reer Puntland ee ku kala dhaqan dunida dacaladeeda. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay kulankan ayaa waxa wajahooda ka muuqday sidii ugu faraxsan yihiin in la mideeyo guud ahaan fikirka ardayda Soomaaliyeed iyagu ka soo jeeda Puntland. ugu horeyn gudoomiyaha cusub ee ururka ardayda Puntland Maxamed Aadan Yusuf Hami ayaa iga warbixiyay ujeedooyinka loo aasaasay ururkani waxyaabaha uu qaban doono iyadoona qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulankan ay ka dhiiban doonaan aragtidooda. inaan bal ardayda reer Puntland aan meel isugu keeno aan isbaro inta aan soo waxa hadda laga yaabaa inta halka watan inaan badan oo kamid aan aqoon xaqiiqdi reer Puntland waa chess waa qoys yar oo meel degan xaqiiqdi waxa la yiraahdaa sagaartun la kala qalmo leh oo anagii baa waxaan nahay xaafad xaqiiqdi marka anagu xaafad markii hore ahayn hadana all the way maantii Far East Asia joogna hadana inaan aqoon funaantii waa arrin nasiib darro ah waana tan keentay inaan ka dambeeyno bulshada kale awood waxaan saarayaa in ummadda aan leeyahay reer Puntland soo keeno ay meel soo wada fariistaan ay wax soo wadaarsadaan ay fikir wadaagaan taas waxaan ku sameyn karnaa magacaygu waa Mukhtaar Ali Cabdi oo ku magac dheer Suldaanka Soomaaliyeed halkan waxaan u nimid doorashadii ardayda Puntland ee dalka Malaysia doorashadu maanta waxay u dhacday si cadaalad iyo xor oo xalaal ah waxaan hambalyeynaa labada musharax laga guuleystay gudiga qabanqaabada doorashadana si wanaagsan oo hay kalsoon maqaam sare ay ku soo agaasimeen mar labaad waxaan mahadcelinayaa TV-ga caalamiga Somali Channel ee u helan inuu soo tabiyo barnaamijyada noocan oo kala ah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد magacayga waxa la yiraahdaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaana ahay arday halkan wax ka baran jiray haddana ardaynimada dhameeyay sanadkii hore aan waxaan dhameeyay PhD haddana waxaan joogaa wadanka Malaysia waxaan rabaa inaan halkan kelmadayda ka iraahdo awalna waa ka iri markii xafladdu bilaabanaysay xafladda caawa halkan la isugu yimid waxay ahayd gudoomiyaha waxa lagu dooranayay ardada Puntland ee wax ka barata wadanka Malaysia runtii arintaas waxay ahayd arin qurux badan mar haddaan caawa nasiib u yeeshay inaan kala qayb galo farxadan ardada reer Puntland mustaqbalkoodii iyo gudoomiyahoodii mustaqbalka hogaamin lahaa dooranayay waxaan rabaa inaan mar labaad ku guwaabiyo farxa caawa meeshan ka muuqday waa inaad ka dhabaysaan waxa ay sugahaya ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland guud ahaan Soomaaliya oo dhan waxa tiin jiilkii ummadda u baxay waa inaad laba jibaartaan waxbarashadiina aqoontiina maxaa yeelay Soomaaliya waxa dib u dhigay oo heerka gaarsiiyay waa aqoon la'aan waa jahli jaaniska aad maanta haysataan wali waxaan la hadlayaa ardayda reer Puntland jaaniska aad maanta haysataan ma aysan helin arday badan oo Soomaaliya joogta mar dhaweed waxaan soo maray Soomaaliya gobolo kamid ah wadanka Malaysia oo kamid ah wadamada ay ku badan yihiin Soomaalida ayaa waxa ka dhisan urur dhowr ah oo ay leeyihiin ardayda Soomaaliyeed oo iyagu wax ka barata wadanka Malaysia waxaana xusid mudan in dhammaan ururadaasi hoos tagaan ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia SSM Somali Society Student Malaysia. Axmed Abukar Ashari telefishinka caalamiga Somali Channel Malaysia.